السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلام وعنو ونكسن داود يال هالكني واحد صورك وحكوسو دواتان برامجورات كنا قدوبدات كداون دونتان وحاقو مدن صاحب يال رئيس الوزراء مقعابا حمزة عبد بري وسبحو وهلي عدك كالسوني ده بارلبانكا لبدي سوغالي وديسو قدبين دونا صاحب يال إمسا مدني اياك خبقشي كالسوني ده عدك لغسيني رئيس الوزراء حمزة عبد بري برامجورات كنا ايان كوغسو قدبين دونا صاحب waxaa kaloo barnaamijyadeedkeena ku daawan doontaan saaxiib laba qofood oo isku qoys ah oo lagu dilay magaalada caasimadda Muqdisho iyo cabsi aad u xooggan oo xaafadaha qaar ee magaalada caasimadda Muqdisho ay ka taagantahay waqti xadirkan wadin soo gudbin doona barnaamijyadeedkeena ayaan ku la fogori doonaa saaxiib sidoo kale waxaa ku daawan doontaan barnaamijyadeedkeena intuu habada ku jiro gudoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka dhamaan cad oo ka jawaabay arin xasaasi ah kuna aadan kursiga tirsigiisu yahay hoob Everstate lix oo mar hore ku soo baxay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA wadin soo gudbin doonaa saaxiibayaal barnaamijyadeedkeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale halkani waa xanta wararka hadii ay tahay markii kugu horeysay ku soo gaaray daawade waxaan ka caawisanaa subscribe channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyada soo dhignay ku soo gaaran daawade hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaska waxaan inaga xasuusinaa muuqaalkan share like saar qaybta oo saaragtaad nagu reeb وينو مهم داودين هاتسند أن كبلاون حلبانada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Bare kulanka xildhibaanada ayaa waxaa goobjoog ahaa ilaa 220 mudane waxaana gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ra'iisul wasaaraha oo khudbad u jeediyay golaha shacabka ayaa ka codsaday in ay kalsoonida siiyaan si uu gudo galo howlaha shaqo ee loo igmaday intaasi kadib ayaa waxa loo qaaday codeyn gacantaaga waxaana codka kalsoonida siiyay ilaa 220 xildhibaan oo ay dhamaan kooramkii xildhibaanada ee xaadirka ahaa saakay ma jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay sida uu shaaciyay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ku dhawaaqay natiijada codka kalsoonida ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa noqday ra'iisul wasaarihii 22aad ee Soomaaliya kaasoo dhawaan xilka u magacaabay madaxweynaha tobanaad ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxa haatan laga fadhiyaa inuu soo dhiso xukuumaddiisa isla markaana ku soo celiyo baarlamaanka si ay ansixiyaan golihiisa wasiirada cusub Soomaaliya ayaa waxa ka dhacday isbedel siyaasadeed kadib doorashadii 15 May ee ka dhacday teennada Afisyooni ee magaalada caasimadda Muqdisho Xamse Cabdi Bare ayaa laga filayaa in uu haqaadiyo arrimaha doorashooyinka ay raadiyay arrimaha ugu horeeyaan abaara aad u daran oo shacabka Soomaaliyeed sanadkan iyo sanadihii ugu dambeeyay la dhacay iyo xaalado kale gedisan oo ka taagan guud ahaan Soomaaliya xukuumad ayaa laga sugayaa soo dhisideeda taasoo ku saleysan inuu iska baryeeli karo culeysada kaga imaanaya xildhibaanada ama ballanqaadyadii uu sameeyay xildhibaanada labadiisa gol ay ku aadanaa in uu xubno ka siin doono xukuumaddiisa soo aadan si kasta ha Xamse Cabdi Bare ayaa noqday ra'iisul wasaarihii 22aad sidoo kale beeshii markii ugu horeysay ayaa beeshiisa xilkaan ay qaadatay taasoo kaalin kale ka sii qaadanayso hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Bare iyo isha lagu wada haya in ay isla dhameysan karaan mudaxilaadkooda taasoo saameyn togan ku yeelan karta iyadoo ay ama burin kara xandaabkii Soomaaliya ee caanka ka ahaa sanadihii ugu dambeeyay taasoo ahayd inaysan dhicin ra'iisul wasaare iyo madaxweyne isla dhameysta walow محمد عبد الله فرماجو وصور دويو 3 سنه بر isla shaqeynayeen ra'iisul wasaaraha 19 dalka Xasan Ali Khayre Xamse Cabdi Bare howlooyin aad u badan hortibinteeda ayaa hortaalo dhameystirka hanaanka qibyada oo ka dhigay Maxamed Xuseen Roble in xilka si toos ah ugu wareejiyo walow Maxamed Xuseen Roble talaadii toddobaadkii tagtay oo midkalaada ama maalintii talaadii toddobaadkii dhaafay ayuu soo macsalaameeyay xafiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoo si diyaariyay inuu la wareego Xamse Cabdi Bare la filayay maalinta Arbacada had inuu xafladda ambacadka kalsoonida la siiyo walow dib u dhac ku yimaday safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gaaray dalka isu tagay Imaaraadka Carabta oo shalay galinkii dambe uu soo gaaray caasimadda Muqdisho walow aysan ka soo qayb galin kulanka maanta isagoo caabuqa COVID-19 uu karantiilan yahay qaybo kamid ah filla Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wufuudiisa ayay ahayd bayaan warbaahintu ay baahinayso ka hor intaysan shalay
filla Soomaaliya madaxtooyadeysan shaacin in caabuqa COVID-19 laga helay madaxweynaha iyagoo sii shaacinayay in qaybo kamid ah laga helay caabuqaas sidaasna dib ugu sii dhacday balse ugu dambeyn waxay shaaciyeen shalay toole in madaxweynaha tobanaad ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo la dhibaatoonayo fayraska COVID-19 kaasoo dabiiqadii sanadka 2019 dunida idil ka soo shaabaxay gobolka Wuhan ee China xilli 16 bishii 3 Maarso sanadka 2020 qofkii ugu horeeyay magaalada caasimadda Muqdisho laga helay caabuqa COVID-19 wali waxa daawanaysan barnaamijyadeena daawadayaal halkani waa xanta wararka hadii ay tahay markii ku gooreysay ku soo gaaray daawade waxaan ka codsanaynaa subscribe channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyada aan soo dhagnay ku soo gaaran daawade hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaska waxaan naga xasuusinahay muuqaalkan share like sar qaybta wasaaradda nagu reeb waa inoo muhiim daawade mahadsanida dhinaca kale gudoomiyaha kumeel gaarka ahaa xildhibaanada golaha shacabka intii laga soo dooranayay gudoonka rasmiga ah ee golaha xildhibaanada Cabdisalaan Axmed Liibaan Dhammancad ayaa ka hadlay isku eedeyntii ku wajahay kiiska golaha Tahliil Faarax Ambassador Dhammancad ayaa sheegay in rag iska dhicin ee ka tahay eedeynta Fahad Yaasiin ee ku wajahan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo mas'uuliyiin kale oo sheegay in dileen gabar sarkaaladeed inta aan Roble ka aqaan waa iska yartahay oo 2 ama 3 jeer ayaan arkaa ninkii yiri Roble ayaa gabar dilay isagoo la wadiin doono oo dalka garsoor ayaa ka jira ayuu sii raacay hadalkiisa sidoo kale xildhibaan Cabdisalaan Dhammancad ayaa sheegay Maxamed Xuseen Roble uu talo ku lahaa in kursiga la dhaafiyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir balse anaga arintooda nama quseeno Roble wuxuu ahaa inaan musharax ahayn oo dadaalayo oo leh in wixii la diiday la hala dhameystiro hadalkiisa ku sii daray wuxuu sheegay in Dhammancad ahaan uusan garaynin sababta Maxamed Xuseen Roble ku kalifi karto inuu gabar dilo warkaas wuxuu ilaa muuqdaa war la isku yiri ee warbaahintu hadda gasho ay weydiimo ninkii yiri Maxamed Xuseen Roble wuxuu dilay gabar sarkaalad oo ninsa ka tirsan qofkii yiri waa la weydiin doona maalin uun amar Roble ayaa dacwo kara oo maxkamad tagaya qof wax uusan ahayn lagu sheegay khatarteeda ay leedahay ayuu sii raacay Ambassador Cabdisalaan Dhammancad isagoo wareysiinayay mid ka mid ah TV-da maxalliga xildhibaan Ambassador Cabdisalaan Dhammancad ayaa wuxuu ka hadlay sida ay ula muuqato isku tuurtuurka uu galay kiiska golaha Tahliil Faarax isagoo carabka ku adkeeyay in la muranay tahay in kiiskaasi uu maxkamad sax ay helo raggii madaxda ka ahayd xilligaas hadda baarlamaanka ayayba soo galeen oo waan arkaa markay dadka waa in maxkamad lagu kala saaro dalka hadii ka suurta gali weyso adduunka ayaa laga qaadi karaa ayuu sii raacay xildhibaan Cabdisalaan Dhammancad isku soo dadoobe guuxaad weyn ayaa ka dhashay hadal dhawaan agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee hore Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo rasigaara siinayay mid ka mid ah horiyaasha maxalliga ayaa shaaciyay in Maxamed Xuseen Roble oo ahaa maskaxdii amba ahaa shakhsiga ka dambeeyay Soomaaliya maskaxdii dilka sarkaalada Igraan Tahliil Faarax oo la waayay 25 Juun maanta oo kale 2021 muddo sanad ah ayaa nolol iyo geeri lagu laayahay wallo kalsii horeysay hay'adda NISA ee shaacisay in Igraan Tahliil Faarax ay sababsatay gacanta al-shabaab oo dagaal aad u culus kula jiraba dawladda federaalka Soomaaliya iyo shakhsiyaadka ka shaqeeya waa sida agaasimihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir bayaankii ka soo baxay NISA ku sheegeen balse goor dambe ayuu bayaankaasi iska laalay isagoo idil dusha ka saaray Maxamed Xuseen Roble al-Cadaala iyo Mahad Salaad dhinaca kale faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxay dil qorsheysan oo xalay toole ka dhacay qaybo kamid ah degmada Harkeen ee gobolka Banaadir kaas oo loo geystay 2 qof oo isku qoys ah sida aan xogta ku helnay dilkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu xalay toole ka dhacay xaafadda Suuqleef waxaana loo geystay Xuseen Cabaas iyo Cabdi Ismaaciil Cali oo kamid ahaa dadka deegaanka wararka ayaa sheegay ragga hubeysan bistoolada iyo toogasho ku dileen marxuumiinta oo hal goob wada fadhiyay kadibna ay goobta isaga baxsadeen sidoo kale wararka aan intaas ku sii darayay in 2 qof ee la dilay ay ahaayeen wiil iyo adeerkiis sida ay xaqiijiyeen ilwareedo lagu kalsoon yahay ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goobta gaaray
kuwaasoo meydkooda ka soo qaaday halkaasoo kadib helay CID si ay baaritaan loogu sameeyo falkaasi. Si kastaase cabsi aad u xoogan ayaa ka jirta qaybo badan oo kamid ah magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo dilo qorshaysan saacadihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen daawadayaal. guud ahaan wanaag inta barnaamijyadeena aad ka daawanaysan channelkan YouTube-ka xanta wararka hadii ay taa markii ku guuleysay kusoo gaaray daawada waxaan ka codsanaynaa subscribe channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyada soo dhagnay ku soo gaaraan daawada hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaska waxaan naga xasuusinaa share like saar qaybta oo saragtaad nagu reeb waa inoo muhiim daawada si asxaab wanaagsan oo adigoo kale aan u helna daawada ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan sidaas iyo mana Allah nabadgelyo.